السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامج كيني مانتا سويال تي في oo si toosa ayni kaga imanaya magaalada Qaro ee Puntland Soomaaliya. Barnaamijkeena maanta qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona wada xaajoodkii magaalada Rome ee u dhaxeeyay Mareykanka iyo dalka Iran oo heshiis uu ka soo baxay. Muxuu yahay heshiiskaasi? barnaamijkeena ayaa ku maqli doontaan. Israel oo ciidamo looga laayay magaalada Gaza iyo kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta oo soo bandhigay muuqaal maxbuus oo isagu u muuqday inuu la hadlayo qoyskiisa, iyo weliba dagaaladii ugu dambeeyay ee Israa'iiliintu ay ku xasuuqayeen Falastiiniyiinta iyo waxyaalihii ugu dambeeyay iyo khasaarihii ay geysteen. Xuutiyiinta oo soo riday diyaarad ka mid ah diyaaradaha aan duniyaha lahayn ee Mareykanka. barnaamijkaas intaas iyo in la mid ah ayaad barnaamijkeena ku maqli doontaan. ku bilowno dhinaca Gaza. Warbaahinta Israa'iil ayaa waxay sheegtay in askari looga dilay 4 kalena looga dhaawacay weeraro ay fuliyeen xoogga iska caabinta iyadoo dagaalo culus ay ka socdaan waqooyiga marinka Gaza. 53 Falastiiniyiin ayaa lagu dilay duqeymo arxan darro ah oo Israa'iil ay ku beegsatay dad rayida tan iyo waaberigii maanta, taasoo tirada shuhadada ka dhigaysa in ka badan 100 qof labadii maalmood ee la soo dhaafay. iyadoo duqeymuhu ay socdaan ayaa xaaladda bini'aadanimo ay Gaza ay ka sii daraysaa xilli ciidamada Israa'iil ay weli ay xiran yihiin ama ay u xiran yihiin marinkaasi, isla markaana digniino laga bixinayo macluul ku soo fool leh dadka ku nool halkaasi. dhinaca kale, afayeen u hadlay ra'iisul wasaaraha Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in heshiis lagu soo celinayo dhammaan la haystayaasha uusan suurtagal ahayn, maadaama ay taasi la macno noqonayso in la fuliyo shuruudaha Hamas oo ah in la joojiyo dagaalka. Falastiiniyiinta Al-Qassam ayaa waxa ay sheegtay bayaan ay soo saareen inay fuliyeen weerar jabina oo isku dhafan oo ay la eegteen ciidamo Israa'iiliyiin oo ku sugan bariga xaafadda Al-Tufaa ee magaalada Gaza. warbixintan bayaanka ayaa sheegtay in weerarkaasi lagu dilay laguna dhaawacay xubno ka tirsan ciidanka Israa'iil ee halkaas ku sugnaa. Al-Qassam waxay intaa ku dareen in ay beegsadeen taangi iyo gaari baldoosar ah oo ku sugnaa aagga Jabal al-Surani ee isla bariga xaafadda Al-Tufaa, kuwaas oo dab qabsaday kadib weerarkaasi ay geysteen. tani waxay qayb ka tahay weeraro joogto ah oo ay xoogagga iska caabinta Gaza ay ku qaadayaan ciidanka Israa'iil ee gudaha u galay qaybo ka mid ah marinka Gaza. warbaahinta Israa'iil ayaa waxa ay ku magacowday askariga ku dhintay oo ay kooxaha iska caabintu ay dileen Galib Silman al-Nasara oo 35 jir ah kana soo jeeda magaalada Rahaad ayaa lagu yiri weerar ay soo qaaday Hamas laguna dilay askarigaasi, kaasoo ka dhacay gelinkii dambe Sabtida sida ay shaacisay militariga Israa'iil. Al-Nasara waxa uu ahaa askari ka tirsan qaybta waqooyiga ee cutubka Gaza ee ciidamada difaaca Israa'iil, wuxuuna noqday askarigii ugu horeeyay sida ay warbaahintoodu sheegayso ee lagu dilo gudaha Gaza tan iyo markii ay ciidamada Israa'iiliyiintu ay bilaabeen weerarada ay ku qaadayaan marinka Gaza 18 bishii Maars. weerarkan ayaa sidoo kale dhaawac culus lagu geystay 5 askari oo kale iyadoo 3 ka midana ay haween ahaayeen. isla dhinaca kale, warbaahinta Israa'iil ayaa waxa ay aqoonsatay in lagu magacaabo Elkana Bohobot oo la afduubtay xilligii uu socday bandhigii 7 Oktoobar 2023. Al-Qassam ayaa sii daysay muuqaal qaatay in ka badan 4 daqiiqo kaasoo Bohobot lagu arkayo isagoo fadhiyo qol yar oo uu la hadlayo saaxiib iyo xubno qoyskiisa ka tirsan. sida muuqaalka lagu sheegay, lama xaqiijin karin haddii wacitaanka uu dhab ahaa iyo goorta la duubay muuqaalkaasi, sida ay sheegtay wakaaladda wararka AFP. Bohobot ayaa muuqaalka ku jira isagoo isticmaalaya telefoon xarig leh kuna boorinaya saaxiibkiis inuu xaaskiisa u geeyo aqalka cad si ay ula kulanto madaxweynaha Mareykanka Donald Trump si loo fududeeyo sii deyntiisa. tani waa muuqaalkii saddexaad ee Bohobot
oo la sii daayo toddobaadyadii lasoo dhaafay iyadoo kii hore la baahiyey dabayaaqadii bishii Maars. muuqaalkaas ayuu ka codsaday in dowladda Israa'iil ay dadaal u gasho sii deyntiisa. muuqaalka ay baahisay Xamaas ee muujinaya Elkana Bobod oo weli nool ayaa yimid xilli Maraykanka iyo Iiraan ay yeesheen wareegii labaad ee wadahadaladooda tooska ah oo ku saabsan barnaamijka nuclear-ka Tehran. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu wuxuu sheegay inuusan marnaba u jilicsanaan doonin Xamaas, isagoo yiri ma isdhiibi doono. Isdhiibidaas waxay khatar gelinaysaa shacabka haddii aan aqbalno dalabkooda. Dhammaan guulihii aan gaarnay waa lumi doonaan. Netanyahu wuxuu intaa ku daray in Xamaas mar kale ay diiday dalab lagu doonayay in lagu sii daayo kala barlaastayaasha nool iyo meydadka askarta Israa'iiliyiinta. Xamaas waxay dalbatay in la joojiyo dagaalka. Haddii aan aqbalno in dagaalka aan joojino, waxa ay la macno noqonaysaa in Israa'iil lagu khasbi karo inay isdhiibto, ayuu yiri. wuxuu fariintaasi u adeegsaday sidii uu taageero ugu heli lahaa shacabka si dagaalka u sii socdo, cadaadiska la saarayana uga yaraado. afhayeenka ciidamada qalabka sida ee Yamanta Xuutiyiinta Yaxya Sariic ayaa sheegay in ciidamada dalkaasi ay soo rideen diyaarad kale oo ah nooca aan duuliyaha lahayn ee Maraykanka oo ah MQ-9 Reaper. 24 saac la soo dhaafay. Tani waxa ay tirada guud ee diyaaradaha MQ-9 ee ay Yementu soo riday ay ka dhigaysaa 21 diyaaradood. Iiraan iyo Maraykanka ayaa sabtidii ku heshiiyey inay bilaabaan wadahadallo heer khubaro ah oo ku saabsan faahfaahinta heshiis suuragal ah oo la xiriira barnaamijka nuclear-ka ee Iiraan, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Abbas Araghchi kadib wareegii labaad ee wadahadallada ka dhacay magaalada Roma. Araghchi iyo wakiilka madaxweyne Trump ee bariga dhexe Steve Witkoff ayaa kulmay saacado badan, taasoo muujinaysa horumar laga gaaray wadahadallada. labada dhinac waxay qorsheynayeen in khubaradoodu kulmaan maalmaha soo socda, kuna kulmaan magaalada Muscat ee dalka Cumaan, halkaas oo sidoo kale lagu qaban doono kulanka xiga ee Araghchi iyo Witkoff 26 bishan Abriil. wadahadalladan ayaa ah kuwo si dadban u socda iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee Cumaan Badri al-Buzaidi uu fariimaha u kala gudbinaya labada dhinac. Tani waxay calaamad u tahay isbedel taariikhi ah oo ku yimid xiriirka labada dal ee xumaaday tan iyo kacaankii Islaamiga ee Iiraan ee ka dhacay dalkaasi 1979 iyo dhibaatooyinkii safaaradda Maraykanka ee Tehran loo geystay. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa hore uga baxay heshiiska nuclear-ka 2015 intii lagu jiray xukunkiisii hore ee sanadkii 2018, taasoo keentay cunaqabateyn cusub iyo xiisad diblomaasiyadeed. haatan isagoo mar kale xafiiska haya, Trump wuxuu wacad ku maray inuu ka hortegayo in Iiraan ay hesho hub nuclear ah, isagoo sheegay waxaan rabaa in Iiraan ay noqoto waddan weyn oo barwaaqo ah. kulankani wuxuu imanayaa iyadoo gobolka uu ka jiro xiisad aad u sarreysa oo ka dhalatay dagaalada Gaza iyo weeraradii cirka ee Maraykanku uu la beegsaday Xuutiyiinta Yemen, kuwaas oo ay taageerto Iiraan. waxaa sidoo kale muuqda cabsida laga qabo weerar militari oo Maraykanka ama Israa'iil ay ku qaadaan xarumaha nuclear-ka Iiraan. waxaa la filayaa in hay-adda qaramada midoobay ee la socodka hubka nuclear-ka ee IAEA ay door muhiima ka ciyaarto haddii la gaaro heshiis, iyadoo mas-uul ka noqon doonta xaqiijinta fulinta qodobadii heshiiska sida ay samaysay heshiiskii 2015. Talyaaniga ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay martigeliso wadahadallo dheeraada oo heer farsamo ah si loo sii horumariyo geedi socodka nabadeed. Araghchi ayaa sabtidii la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga Antonio Tajani ka hor inta uusan la fariisan wakiilka Maraykanka ee bariga dhexe Steve Witkoff. isla maalintaas agaasimaha guud ee hay-adda caalamiga ah ee tamarta atomigada ee IAEA Rafael Mariano Grossi ayaa isaguna la kulmay Tajani. hay-adda Grossi ayaa la filayaa inay door muhiima ka ciyaarto xaqiijinta hirgelinta heshiis kasta oo la gaaro sida ay hore u samaysay heshiiskii 2015.
Tajani waxa uu sheegay in Talyaanigu uu diyaar u yahay inuu sii xoojiyo wada hadallada xitaa heer farsamo. Heshiiska diblomaasiyadeed waxaa lagu dhisaa si samir leh maalinba maalinta ka dambaysa iyadoo la adeegsanayo wada hadal iyo is-ixtiraam, ayuu ku yiri war-saxaafadeedka. Labada wakiil waa Raji iyo Witkoff ayaa safaro diblomaasiyadeed ku maray meelo kala duwan ka hor kulanka. Witkoff wuxuu booqday Paris isagoo ka qayb galaya wada hadallo ku saabsan xaaladda Ukraine, halka Raji uu booqday Moscow oo uu la kulmay mas'uuliyiin ay ku jiraan madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. Ruushka oo ka mid ahaa quwadihii ka qayb qaatay heshiiskii nuclear-ka Iran 2015 ayaa loo arkaa inuu door weyn ka ciyaari karo heshiis kasta oo cusub. Falaqeeyaashu waxa ay sheegayaan in Ruushku uu xitaa qaadi karo mas'uuliyadda kaydinta uraniumka ay Iran u ururisay heerka 60%, taas oo ah tallaabo yar oo ka dhiman in laga dhigo hub. Caasimadda Cumaan ee Moscow ayaa martigelisay wareegii koowaad ee wada hadallada aan tooska ahayn ee Raji iyo Witkoff toddobaadkii hore, iyadoo hore wada hadalladoodu ay u ahaayeen kuwo dadban. Cumaan oo ku taala geeska bari ee jasiiradda Carabta ayaa muddo dheer ahayd dhexdhexaadiye u dhexeeya Iran iyo reer galbeedka. Si kastaba ahaatee, ka hor wada hadallada Iran waxay si kulul uga jawaabtay hadallo ka soo yeeray Witkoff oo markii hore sheegay in Iran ay uraniumka u karsan karto ilaa iyo 3.67, balse mar kale sheegay in wax soo saarka uraniumka gebi ahaanba la joojiyo. Ali Shamkhani oo ah la taliye sare oo u dhow hogaamiyaha sare ee Ayatollah Khomeini ayaa qoraal uu soo dhigay baraha bulshada ku sheegay in Iran aysan marnaba aqbali doonin inay gebi ahaanba joojiso barnaamijkeeda korsashada uraniumka kuna bedesho hab la mid ah kii Liibiya ama inay ku kalsoonaato uraniumka dibadda laga keeno. Sida ognahay muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa ka socday Mareykanka iyo Shiinaha dagaal dhinaca ganacsiga, iyada oo cashuuraha uu mid waliba midka kale uu gaarsiinayay heerka ugu sarreeya. Haddaba hogaamiyaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa bartiisa X ee hore Twitterka loo oran jiray waxa uu ku soo qoray: boqortooyadii Cismaaniyiinta ayaa joojin kari weyday buu yiri kororka Yurub. Boqortooyadii Ingiriiskuna waxay joojin kari weyday kor u kaca Mareykanka. Haddana Mareykanku ma joojin karo kor u kaca Shiinaha. Taariikhdu waxay na bartay in aanay boqortooyadu weligeed xukumin. Madax bannaanida Mareykanku way dhammaanaysaa, indhaheenna hortooda ayayna ku dhammaanaysaa, ayuu ku soo gabagabeeyey hogaamiyaha Shiinaha, taasoo u muuqata dagaalka ganacsiga iyo khilaafka u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinuhu heerka uu gaarsiisan yahay. inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkeennii maanta oo aynu kaga hadlaynay arrimo badan. waa maalin axad ah oo bisha Abriil ay tahay 20 sanadkuna uu yahay 25. barnaamijkan mid la mid ah inta aynu dib u kulmi doono waa Sooyaal TV iyo Cabdirashiid Geele iyo bahda Sooyaal TV oo idin la isma dhaafno.